maalmaha ka mid ah Abubakar Sidiiq wuxuu dacwooday nabiga wuxuuna ka dacwooday Umar bin Khadaab waxa uu yiri nabi Allah Umar bin Khadaab markaas ka hor imaadno ima salaamo salaanta uma bilaabo ilaa salaanta aan ku bilaabo mooyaane Umar salaanta uma bilaabo haddaba Umar nabiga uu yeeray wuxuu ku yiri Umar walaalka Abubakar salaanta maxaa ugu bilaaway maalin kasta oo maxaa sabay in Abubakar salaanta uu bilaabo adiga Umarna salaanta aan bilaabinin Umar wuxuu yiraahday nabi Allah waxaan maqlay qofka salaanta bilaaba oo laag salaanta ku bilaaba wuxuu iska leeyahay guri jannada ku yaala sirta ay waxa jecelaystay in Abubakar Sidiiq guriga uu helo marka sadarteed salaanta asaga ayaan jecelahay inuu bilaabo markasta soo guriga uu helo taasoo ku tusinaysaa walaaltinimada dhabta ah halkaas waxa ahaayeen rag walaalo dhab ay ahaayeen sababtoo waxa ka dareemaysaa Umar wuxuu la jecelaystay gurigaas inuu helo Abubakar marka nabiga sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi qofkiin rumayn maayo iimaan laga heli maayo ilaa uu la jeclaado walaalkiisa wuxuu la jecel yahay naftiisa sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam jannada galmaysan ilaa rumayna maysan ilaa isjeclaataan ma idin sheega shayda samaysan isjeclaanaysan wixii nabiga sallallahu alayhi wasallam salaanta faafiya qof agaranaysid iyo qof aan garanaynba salaanta ku bilow sida darteed ayaan waxa ka qaadan doonaa qisadan walaalka dhabta ah oo midka kula jeclaada wuxuu isla jecel yahay laakiin walaalka ma ahan sida aan qaano kale markii aad dhibaataysan tahay kuwa ka kala dareera markii aad farxsan tahayna waxa way agtada aad ba loo buuxaa laakiin markii aad u baahatid garab dadku aad u yar yihiin laakiin markii aad farxsan tahay oo guulaysan tahay oo nolosha ay baraar ku tahay dad badan baa ku garab taagan laakiin markii xaajadu ka jaban tahay oo ka kala taalo walaalka dhabta ah markaas la ogaado waxa la yiraahdaa fardaha baa la yiraahdaa lama garto ilaa tartansiyo akha ama walaalka lama garto ilaa dhibaato ay kugu timaado marka waxa kala garanaysaa walaalka dhabta ah iyo walaalka beenbeenta ah marka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa kamid todobadii cashkar aharsanaysay almutahabuna fillah qofka ilaahay dartiisa u jeclaa sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam qof ilaahay dartiisa u jeclaada ilaahay dartiisa wuxuu baxsan iimaankiisa oo dhameystirmo muuqaalkan fadlan si share garee